beel Soomaaliyeed oo beel weyn ah oo maxaan ku yiraahdaa la aqaano oo caam ah tihiin haddaan cirdigiina iyo sharafkiina inaan ku xidgudbaan aan doonayno waxaad samayseen waxa weegaan samayn lahayn waana samayn karnaa ilaahay ugu baqa waxaad samaynaysaan dad Soomaaliyeed daris oo walaalahan ah tihiin idinka idin ma nihin xaqiiqan ay sheegna annagu waxaan nahay ormala harti ma nihin hadda sheegaynaba ma nihin harti warsingili waa harti ma nihin annaga hartini ilaahay waqtigiisa laabtaynu u soo duma doonaba hadda laabtaynu ay kala fogaad waxaad ogtihiin oo foolxumada lahaa oo wuxuusnimada ahaa oo la yaab kala ayaa dhulkan ka dhacay cid walbana way ogtahay hartiga waxaan ka rajaynaynaa insha Allah laabtaynu in ilaahay u soo duma dariskayna way walaalahan way muddo wada deganayni weligan wax hadana dhax yeelana ma dhax maran laabtayna Allah u soo duma laakiin waxaan idin cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogtiin annagu inaan warsingili ahaan ormala aan nahay dadka waa ma degan aan nahay dadka waa ma waliba awood iyo dhaqaalaha ku haystaan nahay wax yar oo daciifin ah oo sandareerta ah uma baahnan war ilaahay ugu baqa waxa reer warsingili waxaad ku dhaqmaysaan ilaahay ugu baqa waxaad ku dhaqaysmaysaan wax fool xumo leh waay annaga ma caayayno waxyaabaha idinka aad samaynaysiin ma samaynayno dhaqanka isaga waxaan jeclaan lahayn inaad wax ka bedeshaan haddaad ka bedel waysaan insha Allah wada waqtigeeda yeelan doontaa insha Allah waana ka wada hadla doonaa haddana digniin mar labaad waxaan leeyahay war ilaahay ugu baqa waxaad ku dhaqmaysaan ilaahay ugu baqo annaga dad Soomaaliya ahaan nahay haddaad dhiqortaan noo imaado walaalayaal waxaan idinkaga baahnayn dhah laakiin annaga aad natiin annaga warsingili ma nihin ormalaan nahay ma nihin warsingili ormalaan nahay dadka deegaankan deganagna dadka xoolaha ku haysta dhaqaalaha ku haysta deganagna awood ku leh cid maanta dulsaar uma naqanayna warsingili haddaad doonaysa inaan maanta adiga dulsaar walaalaha inaad tihiin dulsaar idin ma naqanayna deegaannahay Soomaalida dariska dhulka degan deegaanka ayaan doolamatiin sida ogaadeen ka nolomatiin riixan ka nolomatiin waxaan nolomatiin maxaan ku yiraahdaa nimanka la yiraahdo hartiga kala umad ilaahay nolomatiin warna daaya war ilaahay ugu baqayna daaya dadku wax magaradkooda jaqaha la galaysiin iska daaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh 18 qabiil oo muuqata ormala horta nabar 1 waay nabar 2 ma gala meeshaani dhobley iyo kismaayo dhaxdooda nafka jooga iyo qoriga jooga iyo wiilka joogana isaga waa isaaki ilaahay ma ogi bani aadamna magan uma aniga kontanan jira maxamed macuujiliba yaa liiraha ninaan yaqaan mala ormalaan ka dhashay kontanan jira maxamuud hartiyaan ahay daraadaan maqlay waxaan leeyahay hal qodobaan islaamka diriska nala oo colaadana dhaxmartay oo beer doqoneed waa la leexiyaa ay wax naga leexsameen oo diriska nahay oo walaalaha nahay waxaan u sheegaa waxaan kala mudneenay nagu la kaceen waxaan rubadayna loo qoori karnaa inoo kaceen madax gaab ay la kulmeen masaakiin ay wateen nan ay gacanta u saareen waa nagu xadgudbeen waxna qabtana ma ahan wax qabiil qaban karana ma ahan waxaad rubadaada hartii ay u ogolaan laheen rubada aad leedahay hartay waxay u ogolaan laheen inaan rubadayn ay u ogolaato waa kacowna salli ciifnimo leh oo dirisnimada ku fiicneen ehelnimada aan ku fiicneen sharaf dhac qabiilkana aan ay